السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي مقعي وحلي رضا ياسين عبد الله وعن دقنا مقالة يوتبوري دالك سويدن. وان كحومها أيامها قدام بي وقتي عاد عريري يقول نقضي سيدا استرتيت وان كم مشغولي إن أنا عجلة عصب صوص هارو برودكشن كيما حوقع وحد مودينو إيجا كلا هاري أما إيجا كلا قوي. لكن إن شاء الله ما وحنسكو دايا إن أن سي دك أو بوبسيس أن إذين شيء أنت إذين كذا هرتي ورخدن قداشي إذا كسورن إنه حرجيني إن رنتي أن بوبسيو أو أن سي دك أن ووضو مركا إلى السعودية إن شاء الله. waxaan idinsugu ka dambeysay la qodobka 14aad inaan ka hadlay waxaad moodaa in arrinkan xogaa uu taxanun noqdo xogaa uu dheeraaday laakiin insha Allah waxaan isku dayayaa inaan xogaa inta soo gaabiyo nuxurka aad kala baxdaan haddii su'aalo kale ay ka yimaadaan insha Allah iyagu laftoodu wax isbedel baan ka sameynaa waxaan ka qabanaynaa qodobka 14aad baa ugu dambeysay sida hadda hore idinku sheegay maanta waxaan ku bilaabaynaa qodobka 15aad wuxuu leeyahay macnaha uu leeyahay caruurta uu xiriirsiinaya wuxuu leeyahay qodobka 15aad inay xaq u leeyihiin inay furtaan ama ay ka qayb galaan ururo organization wuxuu qodobka 16aad wuxuu leeyahay waxaad xaq u leedahay inaad amaan hesho oo aad waliba sir leedahay oo sir hesho so amaanka inaad amaan hesho marna in aad sir leedahay oo sirtaadu lafteedu ay muxuu ahaa ku nabadgelayso marka qodobka 17aad wuxuu leeyahay waa inaad heshaa xorriyad inaad haysatid min internetka raadiyaha iyo televisionka tusaale ahaan yani inaad geli kartid oo aad heli kartid ama geli kartid ama heli kartid aaladaha siiti taas macnaheedu ma aha waalidiinta waxaan rabaa inaan xusuustaan macnaheedu ma aha ilmuhu inaad wax walba aad soo iibiso oo aad isagaba qadka ka saarto taas ma aha waxa laga hadlayaa iskuulku internet ku haysta qasab ma guriga xitaa inaad internet ku leedahay laakiin waa xuquuq ilmuhu ay leeyihiin oo hadday duruufo ku diido inaad aaladaha siita la soo baxdid ama aad samaysatid ama guriga aad keensatid de waxa dhibaato hadeertan kugu dhacaya ama qaab kugu dhacaysa haba yaraatay ma jirto qodobka 18aad wuxuu leeyahay sidan waalidiintaada ayaa mas'uul ka ah hadda hadalkaas si fiican u dhigayso macnaha waalidiintaada ayaa mas'uul ka ah dawladuna waxa ay caawinaysaa waalidiintaada sida yani waxay caawinaysaa waalidiinta sida adiga ay ku caawin lahayn laakiin mas'uuliyadda caruurta koriimadooda barbaarintooda dabagalkooda ka qayb qaadashadooda yani dariiqa wanaagsan waxaas oo dhan adiga laga doonaya oo waalidka ayaa mas'uulka ah waxa lagu yiri qodobka 19 wuxuu leeyahay waalidiinta macnaha dadka waaweyn oo kaleeto ma aha inay ku dilaan kuma dili karaan kuma cabidsan karaan qodobka 20aad wuxuu leeyahay adigu ila socdo waxa uu xogaa boobsinaysa inii sheegay haddii aadan deganaan karin guriga waalidiinta waxa lagu raadinayaa guriga kaleeto oo aad ku noolaato haddii yani ilmaha la soo korsada ay tahay ama ciyaal wadamadooda laga soo qaaday ama wadankan badeganaad waalidiintooda laga soo qaado reer ay korsadaan qofkaas adiga ku haya ama ku korsaday mar walba wuxuu fiirinayaa waxa adiga ku wanaagsan ilmihii baa la hadlayaa moogta haddii aad soo baxsatay oo qaxooti tahay ama carar baxsasho aad ku jirto waxaad xaq u leedahay in lagu raadiyo oo aad heshid waalidiinta meesha ay ku sugan yihiin ama han noolada ama dhintaan macnaha waalidiinta goobta ay joogaan qodobka kaleeto oo 16aad isaguna wuxuu leeyahay haddii aad naafo tahay ama curiyaan aad tahay waxaa xaq u leedahay in aad dadka aan naafadal ahayn si sharci ah aad ula tartanto yani waxay noqon kartaa ciyaar bay noqon kartaa waxay noqon kartaa shaqo waxay noqon kartaa yani qof naafo ah hadduu yiraahdo tusaale ahaan de orodada 100 mitir dadka caadiga ay ordayaan baan ordayaa yani qofkaas inta lagama hor istaagi karo lama dhihi karo adigu naafa tahay joog
يعني تبرتيسا كل توصي دونتا وإن لو دايا معناها وka qayb gala asaga is arki doona micnaha laakiin dadka waaweyn inay xadidaan oo ay yani ku amar ku taaglayaan baa loo diidaya qodobka kale tan wuxuu leeyahay 25aad hadii aadan deganaan karin gurigaaga dawladdu waxay si joogto ah u fiirinaysaa in meesha aad degan tahay micnaha si wanaagsan lagu wada dhaqmaayo qodobka 16aad wuxuu leeyahay waxaad xaq u leedahay in aad meel badbaado iyo dareen badbaado inaad ku dareemayso aad ku noolaato guri wanaagsan waalidiintaaduna de micnaha hadaadan dhaqaale haysanin waalidiintaaduna inay caawinaad helaan baad xaq u leedahay si adiga ku caawiyaan qodobka 27aad wuxuu leeyahay caruurta oo dhan waxa ay xaq u leeyihiin guri dhar guri ay gooydaan dhar ay xirtaan cunto ay cunaan iyo biyo nadiif ah ay cabaan intaba xaq bay u leeyihiin marka sida hore idinku sheegay qodobadan adduunka oo dhan baa loo sameeyay waxa jira dad hadda Sweden baanu joognaa tubaanu iska furnaa biyaanu iska cabnaa anagoo ka fikirinba umada kaleeto inay biyo haystaan in kale dad waxa jira biyo wasakh ah cabba oo haraa ah oo waliba wabi ama meel ku haray iska cabaa jira soo marka dadkaasi waxa la rabaa in ceelal fiican loo dhiso loo qodo oo dawladahoodu xataa ay ka warqabaan marka halkan anagu biyo tubadaan ka cabnaa ingiriiskan baa ugu dhow hadeertaan maalin dhow ka baxay daraad shalay ka baxay Yurubta ka dhaxbaxay gooniisu istaagay biyahooda tubada lama cabi karaba dadku dhan waxay cabaan biyo dhalo ku jira dhalooyin baa la gataa markaas magaaladan waxa ka buuxsamay qashin ilaa dadka dhalada markay biyaha ka cabaan ama caagi biyaha ka cabaan way sii tuurayaan okay waxa la yiri 28aad wuxuu leeyahay caruurta inay iskuul ay tagaan iskuulkaas in lacag la'aan u ahaado 29aad wuxuu leeyahay iskuuladaas ay tagaysaan waxay ka caawinayaan inaad horumar samayso oo aad baratid waxyaalaha xaq aad u leedahay inaad baratid يعني ay kamid tahay maadooyinka laga wada barto caruurta oo dhan ay ka wada bartaan qodobka 3aad wuxuu leeyahay hadii aad kamid tahay dadka laga tirada badan yahay waxaad xaq u leedahay in luqadaada dhaqankaaga iyo diintaada intuba in aad lagu dhowro adigana aad dhowrato bal xaq u leedahay ajaldeedii hore hadaad ogaato waxaa jira dad ka qaylinaya ama su'aalo ka keenay qodobkii 14aad oo ahaa ilmuhu inay waxa ay doonaan diintay rabaan ay caabudi karaan yani marka sida la yiraahdo micnaha ma aha ilmaha ina diin kala ku kor lagu leeyahay laakiin kan baa wasiif fasiray wuxuu ku leeyahay hadaad tahay dadka laga tira badan yahay minoriteedka hadaad tahay minority waxa xaq u leedahay micnaha luqadaadu inay ka halumin dhaqankaaga inuusan ka halumin diintaadu inay ka halumin ku dhigan qodobka 32aad wuxuu leeyahay caruurta lagu shaqeysto buu sheegaya micnaha shaqooyinka adag iyo muxuu ahaa inaad iyo wara shaqooyinka halista ah baa looga digaya micnaha in caruurtu aanay u baahnayn in ay qabtaan taas micnaheedu ma aha micnaha guriga inaanay ka qabanayn ilmuhu waa inay bartaan oo ku tababarnaa inay guriga ka shaqeeyaan oo guriga wax ka qabtaan qodob 3aad wuxuu leeyahay duuska akhridaas from kanaarka waa la andra faqliga droger waxa aad waalidiintu micnaha ay adigu aad xaq u leedahay micnaha waalidiintaaduna inay ka caawiyaan ay tahay waalidiintii baan wali la hadlaynaa yani inaad ka celisid kala dagaalantid ka celisid kana hortagtid inay xataa bartaan qamriga macnaha daroogada iyo qatarta daroogada u keenaysay daroogooyinka kale oo iyagu laftooda qatarta soo marka waalidiintu idinka idin saarantaa ilmaha inta yar yihiin wax ku shubta way micnaheeda marka si dad baa lagu sheegay laakiin anigu iyadoo cad baan ku soo diray marka si halka kala soco qodobka 34aad wuxuu leeyahay ingen for it need sexuality macnaha qof galmo yani ku isticmaali kara ama ku siri kara oo ka aqli badan inay jirtaba ma aha qofna kan 35aad wuxuu leeyahay qofna kuma iibsan karto qofna kuma iibin karto midna waxa wax la soo iibsaday midna wax la sii iibiyay soo cidna wax kuma soo iibin karto qofna kuma beecin karto ma garata kan 36aad wuxuu leeyahay ingen förutsätter dig för en situation där du kan skadas waxay ku leeyihiin macnaha qofna in uu ku geeyo ma aha marxalad
adigu markaas aad ku jirto oo adiga dhaawac ama dhibaato kuu keenaysa in lagu geliyo ma aha ma garanaysa waxaa jirta taasoo kaleeto waxaa weeye waalidiin waxaa jirta marka ay iyagu casaanka ku jiro ama wax ku jira laakiin ilmahooda telefoonada marka ay rabaan inay kontract soo saxiixdaan bay caruurtooda ku qoraan magarasa hadhow cunugii baa warqado waxaa loo keenaya dacwada iyo lacaga fara badan oo cunugii magaciisa ku qoran oo ilaa iyaga marka waalidiinta noocaas oo kaleeta la rabaa in dariiqada laga xiro wax badan oo hadda anaga naga qusay male wali ma maqlan mana arkin qof Soomaali ah hooyo waalid Soomaali ah oo ilmihiisa dhibaatooyinka noocaas ah oo geliya ama u keenay 37 wuxuu leeyahay qofna kuma jirdili karto kuma xukumi karto macnaha inaad nafta laga qaado ama dhaawacyo jirdil ah oo adag ku geysan karta inay jirin kan kale ku sii xiga 38 wuxuu leeyahay booniska qiidas mudkriig og for intervora soldater caruurtu waa in laga badbaadiyaa dagaalada meelaha dagaaladu ay ka jiraan sidoo kale macnaha caruurtu in la askareeyo ma aha oo askar laga dhigto 39 wuxuu leeyahay waxaad xaq u leedahay in lagu caawiyo hadii lagu isticmaalay yani lagu isticmaalay waxaad xaq u leedahay in lagu caawiyo يعني عاوناتاس waxay noqon kartaa mid dhaqaale waxay noqon kartaa mid maskaxiyan psychological waxaas caafimaad muxuu ahaa inaad u tagto yani caawinaadka kale waxay noqon kartaa xataa meeshii lagu dhaawacay lafteeda in laga qaado bal meel kale lagu geeyo ilaa caruurtii baa laga hadlayaa ma garanaysa qodobka 4aad wuxuu leeyahay hadii aad dambi samaysay om du begår ett brott måste du ändå behandlas rättvist och bra yani حتى haddaad dambi gashay يعني markii lagu qabto ilaa waa dawladda yani xukunka ama yani dawladdaas shuruucda u dhisan oo caruurta ciqaabteedii in lagu marayo laakiin aan inta ka badan lagu geysanin waxa jira dad inta la dilo haadaba laga keeno oo dambiga iska qirta ama dambi iyo waxyaalo kale oo aysan gelin iyagoo wax yar galay wax weyn looga soo qaado soo waxyaalahaas intii baa laga hadlayaa macnaha inaan caruurta waxa lagu sameeyo sharciga kaleeto ama qodobka kaleeto oo ah afkuwi 4aad iyo 2 oo isku xijinaya insha Allah wuxuu leeyahay dawladuhu waxay sameyn karaan in ka badan waxa ku qoran xuquuqdan caruurta ama heshiiskan xuquuqda caruurta yani inta hadda meeshan ku qoran ma wax ka badan oo wanaagsan haddaad la timaadana waad sameyn kartaa dawladihii baa la hadlayaa iyo xataa waalidiintii baad noqon kartaa oo la hadli kartaa inta lagu sheegay caruurtaadi way haddaad ka wanaagsan aad u sameyn karto casharada ka caawin karto ku kontrooli karto inay markay baxayaan soo noqonayaan iyo waxbarashada aad jeclaysiisid oo ma garanaysa waxaas kuma qorna halkan waalidnimadaadi bay kamid tahay haddaad waxaas ka wanaagsan samaysid caruurta wax ku shubatid inta dadka banaanka jooga wax ku shuban lahaayeen way ka sii fiican tahay qodobka 4 qodobka 2 oo ugu dambeeya ama 42 la yiraahdo wuxuu leeyahay alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen dhammaan dadka qaangaarka iyo caruurtaba waxa ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan waxa ku qoran heshiiskan xuquuqda caruurta ah ila waalidkii waa inuu og yahay waajibaadka laga sugaayo ilmuhuna waa inay ogaadaan xuquuqda ay leeyihiin iyo wali waajibaadka laga sugayo maaha adduunka macnaha qof wax la iskama sameeyo caruurtaada waa inay xadidan yihiin waa inay macnaha adigu aad og tahay يعني عيالكاغو ماشي اي مريان هدي ارضي yihiin iskuulaadka iyo waxa ku kontrolshid oo la socod حسابتي انت aad dhageysateen aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxaan rajeynayaa inaad la qaybsataan waalidiinta kaleeto waxaan sida caadada ahayd dib u soo celinaynaa ayamahan sharciyadii bay naga qabsatay waxaan dib u soo celinaynaa talooyinkii dhacdooyinkii aad hore iyaga barateen iyo waanadii macalatay taladii tusaalayaashii aan siin jirnay haduu Ilaahay idmo idinkuna waajibaadka idin saaran ilaa xuquuq baan isa saaray inaad yani waajibaad baan isa saaray baan dhihi lahaa
xaq baad igu leedihiin xaqiina waad iga heshaan insha allah idinkuna waxa weeye xaqaan idinku leeyahay ama waajibaadka idin saarana wuxuu yahay inaad qaybisaan inaad hore u wadaan inaad buttonka taabataan subscribe-ka taabataan inaad muxuu waliba gambaleelka aad ugu dartaan page baan leeyahay Facebook inaad soo wada raacdaan ma garanaysaa marka aad qaybinaysidna waliba fikirkaaga sida aad filinkaad aad fiirsatay sida uu kula yahay iyadoo yar oo qoraal ah inaad ka hormariso dadka kale oo fiirsanayana dhamaantood waxaan kula talin lahaa iyagu laftooda inay taageeraan insha Allah subscribe-ka taabo mar kale tabaan igu celiniya magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Cabdullaahi magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo iyo nolol kulante. Assalaamu calaykum. Bye bye.